maanta waxaan halka wada fadhino yaa keenay yaa bilaabay guuta koowaad baa bilowday dumarkii carruurta bilaabay marka horta guuleena lahayn anigana ku dhaho horta yeena sheegani waxaan u mahad celinayaa dhammaan isimada yeena galino waxba yeena sheegina taa maanta taala aynu koon ilaahno wax kale yeena ku daa isku la riixi ila waynagii uune taa markaan ka baxo waxaan u mahad celinayaa dhammaan isimada meesha fadhiya isimadu waxay inaga mudan yihiin hadal wanaagsan waxay inaga mudan yihiin sharaf waxay inaga mudan yihiin cisi dhammaan isimada waa u mahad celinayaa waxaan si gaar ugu mahad celinayaa inaan nasiib u yeesho inaan dhammaan macsuumadaha dhulbahanta ee dhacaya garaad jaamac garaad ismaaciil waxaan kaloo u mahad celinayaa garaad cabdilaahi garaad salebaan oo labadoodu ii suurtageliyey inaan macsuumadda nasiib u yeesho inaan dhigo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan kaloo u mahad celinayaa dhiirigelinta garaadka guud ee dhulbahante ee mar walba igu dhiirigelinayay saacad walba inaan wax walba oo caqabada ka hor yimaada iga hor yimaada aan adkaysan u yeesho oo daqiiqad telefoonkayga ugu jira garaadka guud ee dhulbahante garaad jaamac garaad cali waxaan kaloo u mahad celinayaa suldaanka suldaan mustafe awseed iga raalli ahaada adalka haddaan ku yarakaday garaadada waxaan u sheegayaa si gaara arrintaa nasiib baan u yeeshay kunka qof ee maanta meesha isugu yimi inaan macsuumaddooda iyo qadasharaftooda aan diyaariyo inta golaha la joogo ilaahayna waa igu guuleeyey waxaan si gaara garaadada ugu codsanayaa horta meesha maantaan furay aan macsuumadda ku diyaariyey hore umay furayn ilaahayna ceebiga ma raacin iyadoo aan dhiirigelinta garaadadoo dhan haysto waan ku guulaystay maantaana i tijaabinaysaan baan leeyahay isimada waxaan rabaa meeshaa cusub ee aan idiin furay idinkoo mahadsan oo aan idinka codsanayaa hoolkiinnii gaarkaa waan idiin diyaariyey oo wax walba u dhan yihiin macaayisiyadiisu inaad markaad qadaysaan si gaara meesha ugu ducaysaan baan isimada si gaara uga codsanaya oo aad maanta iigu timaadaan hoolkan idiin diyaariyey idinkoo haddaad doono meel kala diyaarsaday oo isimadu qaarkood meel kala diyaariyeen taasi waa codsi amaa bacdu intaa dabadeed waxaan idin leeyahay tolkayow dhaliilo badan way jireen wax badan way jireen laakiin maanta xalay dhalay aan ka noqonno waxba yeena taataabanin war ninaan mar soo darin ma lihine ninaan qarka ka darin ma lihine waxba waxaa yeena ku habsaamin aynu danta maanta loo joogo raacno oo isku toosinno oo haddeer markaa hadashaan yaana ay dhalilayse anugu aan ninkii muuse horbooday ee maalkiisa iyo naftiisaba ku bixiye marka waxba yeelnays horboodine nin walba qarka ka dariye waxbana yeelnaysa sheegine aynu maanta arrinta taalla uga gudubno intaana iga raalli ahaada dhammaantiin odayaasha meesha fadhiya culimmada meesha fadhida hebel iyo hebel idiima odhan karo idinkana waad mahadsan tihiin nin walbana wuxuu qabtay uu ku mahadsan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi